iyadoo maalinta berri ah ay ku beegan tahay 12 Rabiicul Awwal ayaa waxa munaasabado kala duwan ka dhaceen magaalada Hargeysa oo lagu weyneynayo dhalashada nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. halkani waa Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana ka qabsoontay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay soo abaabuleen haweenweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa. waxaana halkaasi lagu soo bandhigay qaybo kamid ah taariikh nololeedkii iyo waliba siiradii xabiibkeeni Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waliba dhalinyaro halkaasi ku soo bandhigay nashaa'id ay ku weyneynayaan dhalashada nabigeeni suubana calayhi salaatu wasalaam. waxaana jawiga goobtu uu ahaa sidan سبحانه وتعالى وقال تعالى إلى آية القرآن الحبيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحي إلى إنا أرسلناك وحنقصد نبي محمد شاهدا برخاتي ومبشرا يدقني والنذير يبشاري والنذير يدقني وداعيا إلى الله إلى وجهه بإذنه والسراج افتين منيرا نورا يا أبي الله صلى الله عليه وسلم رسول كان محبتي إلهي أي طرق قاضي إلهي أي هذا القاضي ومصطفى أحمد سمكاب وررك STN TV مقالة هرقيسة.